su-aasha isweydiinta le waxay tahay haddaba madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe cidee ayuu u xaglin doonaa saaxiibadiisa villa soomaaliya mise isbahaysiga tolka ee xaaji muuse suudi yalax uu ka joogo magaalada jowhar ee caasimada gobolka hirshabelle salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa mustafa show aniguna waa mustafa kusoo dhawaada warwixii aanu caalamkeedii ka haynay golaha wasiirada ee dalkani jarmalka ayaa waxay ka hadleen caabuqa corona wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo weliba wasiirka wasaaradda shaqaaluhu waxay ka yidhaahdeen ayaanu idinla wadaagi doonaa shaqaalaha tareemada mudaharaadkii ay wadeen oo isafgarad laga gaadhay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimadda maamul goboleedka hirshabelle waxaa gaadhay u tartamayaasha labada aqal ee sare ee soomaaliya kuwaasi oo tartankoodu meel xasaasiya uu marayo magaalada hargeysa ee caasimadda somalilandna markii ugu horreysay ardays ka soo sharay nusaacahoodu waxa ay deeq ku wareejiyeen maayarka cabdikariin axmed mooge madaxweynaha dalka maraykanka joe bidenna waxa uu sheegay inay soo gabagabowday dagaalkii ugu dheeraa taariikhda maraykanka muddo 20 sanadooda halka aad nagala socotaan waa mustafa show kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan mudaharaadkii ay dhowaanahanba shaqaalada tareenada ayaa isfaham laga gaadhay kaasoo in dhowaalaba shaqaaluhu ay wadeen shaqa joojin baahsan waxaana ay ka dalbanayeen maamulka DB-ga Dojaban oo ah iyadu hay'ad qaabilsan gaadiidka tareenada in loo sameeyo mushahar kordhin 3.2% iyo inay helaan abaalmarinta caabuqa corona oo gaadhaysa €600 qofkiiba maadaama ay ahaayeen kuwa iyagu heegan ku jira wixii bandow iyo isbadbaadin dadku ay galayeen waxaana imika la sheegayaa in arrinkaasi isfaham laga gaadhay dhowaanna shaqadooda ay si caadi u sii wadan doonaan sida uu sheegay afhayeen u hadlay urur ay ku midaysan yihiin oo magaciisa loo soo gaabiyo GDL dhanka kalena dalkan jarmalka golihiisa wasiirada ayaa maanta fadhigoodii waxa ay kordhiyeen xeerka la dagaalanka caabuqa corona kaasi oo mulkiilayaasha loo shaqeynayo ku waajibinaya inay labadii isbuucba si bilaash ah shaqaalahooda ugu fidiyaan baadhista caabuqa corona isla goobahooda shaqada isla markaana ay iyagu bixiyaan bay yidhaahdeen kharashka talaalka ee shaqaalahooda taasi oo howlgelinteedu ka bilaamayso 10 bishan 9 ee September ilaa 24 November ee sanadkan aynu ku jirno iyadoo horena loo ogaa in bartamaha bisha 10 ee October uu talaalku lacag noqon doono ishbaan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalkan jarmalka ayaa sidaas sheegay isla fadhiga golaha wasiirada ayaynu ku jirnaaye golaha wasiiradu waxa sidoo kale ay kordhiyeen in wali lagu sii shaqayn karo guryaha waxa loo yaqaan home office ka yiraahdeen si ay qayb uga noqoto kala fogeynta dadka oo taasi ay wax ka tarayso yareynta fiditaanka coronavirus wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Hubert Heil kana tirsan ama siyaasadda ka soo gala xisbiga SPD ayaa maanta mar warbaahinta la hadlayay sheegay in muhiimadoodu ay tahay badqabka shaqaaluhu ay helayaan dhanka kalena wararka dibadda ayaynu ku jirnaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maruu ka hadlayay aqalka cad ee dalkaasi looga taliyo waxa uu sheegay in haatan la gaadhay dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka 20 sanadood soconayay kaasi oo bilowday 2001 ilaa 2021 kana bilowday dumintii daarihii dhaadheeraa ee Twin Towerska loo yaqaanay ama xaruntii ganacsiga adduunka oo lagu eedeynayay inay burburkeeda ka dambeeyeen kooxda Al-Qaeda oo fadhigeedu u ahaa dalka Afghanistan oo ay xilligaasi ka talinayeen xogaga Taliban oo haatan 20 sanadood kadib iyagu dalkaasi dib u qabsaday dhanka kale hadaynu gudaha u noqonnana waddanka Soomaaliya doorashadii ayaa meel xasaasiya maraysa waxaana lagu dagaalamayaa kuraasta labada aqal ee sare kuwaasoo hirdankoodu meel adag marayo waxaana la sheegaya in xamaasaddu ay ka daran tahay tii Donald Trump iyo Joe Biden u dhaxaysay magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana caasimadda maamulka Hirshabelle waxaa gaadhay u tartamayaasha labada aqal ee sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo ku loolamaya kuraasta gobolkaasi uu ku yeelanayo baarlamaanka Soomaaliyeed su-aasha isweydiinta le waxay tahay haddaba madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe cidee ayuu u xaglin doonaa saaxiibadiisa villa soomaaliya mise isbahaysiga tolka ee xaaji muuse suudi yalax uu ka joogo magaalada jowhar ee caasimadda gobolka hirshabelle dhanka kalena magaalada hargeysa ee caasimadda Somaliland markii ugu horeysay taariikhda waxa arday ay nusaacahooda iska soo jareen ugu deeqeen maayarka magaaladaasi cabdikariin axmed mooge kuwaasi oo qayb ka ahaa hargeysa nidaamsan ama hargeysa qurxoon waana tallaabo runtii dhiirigelin mudan oo ardaydaasi ay ku kaceen halka aad warkaasi kala socotaan waa Mustafa Show anigu waa Mustafa Xaashadan kulantina bisidaas iyo fi amaan Allah